Alan Shearer oo si lama filaan ah u shaaciyay saxiixa ugu fiicnaa Liverpool ay samaysay suuqii xagaagan. Xilliga Premier League Alan Shearer ayaa sheegay in Hugo Ekitike uu durba muujiyay inuu yahay weeraryahanka ugu muhiimsan ee Liverpool. Inkasta oo kooxda ay xagaagan la soo saxiixatay Alexander Isak, Ekitike oo kaga yimid Frankfurt qiimo gaaraya 79 milyan oo pound ayaa si degdeg ah ula qabsaday Anfield isagoo dhaliyay 6 gool 12 kulan oo uu saftay kooxda tartamada oo idil. Dhanka kale, Isak weli si muuqata uguma soo bixin Liverpool, wuxuuna haystaa hal gool oo kaliya kaas oo uu ka dhaliyay tartanka Carabao Cup-ka. Shearer ayaa yiri, waxaan aaminsanahay in Hugo Ekitike uu durba sameeyay wax ku filan si uu u noqdo weeraryahanka koowaad ee Liverpool. Wuxuu intaas ku daray, markii hore wuxuu soo galay kooxda isagoo xil fiican ku jira, goolalna dhaliyay, aad ayuu ula qabsaday booskaas. Inkastoo kulankii ugu dambeeyay loo wareejiyay garabka, haddana wuxuu mar kale muujiyay awoodiisa. Shearer wuxuu sheegay in Isak uusan weli gaarin heerka ay taageerayaasha filayeen. Ugu dambeyn, Shearer wuxuu sheegay in Ekitike uu xaq u leeyahay inuu ka mid noqdo safka koowaad ee kooxda. Fiidnimo wanaagsan saaxiibayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeena Bandhiga Ciyaaraha oo aan caawa ku soo qaatay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.